reer Jabuutina sidoo kale walaalo aad iyo aad u qiimo badan waaye sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray meesha aan ka soo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahano talo welina muxuu ahaay waa halkeedii way noo tahay weli meelaan u soo talo doonano u soo ra'yi doonano markii aan culays qabno aan ku soo cabanno oo aan maxaan ku raadaa war helaa tala helaa la yiriye aan halka aan xogta iyo wararka aan ka soo doonano halkan walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhaweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokowde waa qofka bini aadamka ah adduunka ku nool shakhsiga ama nation hadii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa noo huray dhiig ayaa noo daadiyay waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeena iyo sharafteena iyo karaamadeena si loo soo celiyo ma aha dhaqaalo qofku siiyay iyo ma aha qof maalin un meel ka amaanay naftiisa heen walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noola mid ma aha marka cid kale noola mid yahay dalkani ma jirto bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah waxa la isku ixtiraamo waxa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmada qofka uu ku hayo qof ma aha Soomaali inkastoo hal qoys ay tahay inta af Soomaali ku hadashay meel kasto ay joogtaba haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo inta Soomaali ku hadashay inta kaleba waa walaalo ku daysi mudan sida nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin ku wada joogaan oo dawladooda iyo waxooda u ilaashanayaan waxyaabaha casharada inaan ka baran aan u baahnay ka mid tahay fursadana loo siiyay marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kasto ay joogaanba xalay weyneyntii la weyneeyay iyo qadarintii la qadariyay iyo biladii la isii runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah xalayna yani hurdadeeda runtii in badan oo kamid ah way maqneed waxayna u maqneed waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku raacnaa aan filaynin muxuu ahay la ii weynay ma marka qaar ku waa isweydiyaa weyneyntan ma mudantaan isdhahayo ya marka waa markale madaxweynaha u mahad celinayaa walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa de hadda maalin walba gacan labadaada gacmood maalin walba mid un baad barkataay marka waa ka mahad celinaynaa sida muxuu ahaaye naxariista leh aad iyo aad ayaa u mahadsantay inaan siino saxaafadana xilligeedii waqtigeedii mas'uuliyadeedii wixii ay aanan ziyaado ahayn kabadis aanan ahayn wixii loo egmaday hawl saxaafaddu inay qabato dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha af Soomaaliga ku hadlaya oo dhan inay u tabiyaan waxa aan qabanayno socdaalkani macnihiisa su'aalo fara badan oo aan meesha la ekayna baahi loo qabo aniga ilama aha haddana qasab bay nagu tahay siyaasiyiin haddaan nahay inaan ka jawaabno
su-aalo wixii ay mugdi kaga jiro dadka ku saabsan socdaalkeenna, socdaalka madaxweynaha iyo xaaladda geeska haddii loo baahdo. waxaan annagu xaggeena Jabuuti aan nahay si qadarin iyo xushmo leh ayaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha. waddankiisii inuu joogana waan isleenahay inuu nala dareemayo. waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti, annaguna intaa in la-eg inaan u qabno. waa isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay. waan wada shaqaynay, iminkana waan wada shaqaynaynaa. madaxweyne soo dhawow. floorka waan kaaga kacay. عن داير waxaan maxamed daahir waxaan ku hadlayaa magaca warfiyada Jabuuti. waxaan weydiinayaa su-aasha ugu horeysa aan weydiinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaan jecelahay mudane madaxweyne inaad su-aasha ugu horeysa waxa weeye waa idinka adiyo walaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo idinka wada hadlay maxay ahayd socdaalka ujeedada aad ku tirtay, maxaase ka soo ifbaxo, maxaad isla gaadheen madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti? waa mahadsantahay. maxamed waa mahadsan tahay. dee sida aan hadda hadalkayga yara qoobna aan ku sheegay, meeshaan muxuu ahay Jabuuti dee waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa, waa usoo ra'yi doonanaa. marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku rahaa dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaa oo dowladnimada Soomaaliya, jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ay ku bilaabatay ayaaba halkan ah. taas waa qodob kale. madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saakay aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin, iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo aan ra'yi uga qabi lahayn, haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa, iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeeya lafsadooda sidii aan waxay lahayn. inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn, laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane maraan ku kala ra'yi duwaneen amuurahaasoo dhan ma jirin. marka walaalkay inahaasaan ka wada hadlnay, isku meel ayaanan ka wada taagannahay. waa mahadsantahay. السلام عليكم. عليكم السلام. معي وعبدي وحنا هاي وجه محتوية مدن مدحوينة مرة كسر الجو وذن كعب ما صدق. سؤال وحويا مدن مدحوينة محد كنت مال هاي حق عمات مرة يصح حريق لو نضل صومالي كل جبوتي. mahadsantahay. Jabuuti iyo Soomaaliya de taariikh waxaa la yiraahdaa dadka Soomaalida xidmad waxaa jirta tiraahdo waxaa naga dhaxeeyo waxaan birina goyn biyana aanay meeyrin. marka annaga iyo Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ka dhaxeeya xiriirka ka dhaxeeyo waa sida waligii. haddee caalamka aan ku noolnahay up and down kor iyo hoos waa iska jiraan oo marka qaarkood afkaar iyo waxyaabo un kala duwanaa karta way dhici kartaa, laakiin islahaanshaha iyo islaxawshada iyo iska muxuu ahay waxa Jabuuti iyo Soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma mayraan birina ma goyso waxa ka dhaxeeya. marka waxa naga dhaxeeya meeshaas ay joogaan. waxa kale waa challengeska ama taxadiyaadka soo baxaya sidee aan u address gareynayo aan u wada wajahnaa waayo wixii laga hadlaa mooyaane saaxiibtinimo ama muxuu ahaay wax kale oo dheer oo qoto dheer oo laga hadlaa ma jira way jirtaa already.